1950kii waxaan ku dhashay magaalada Burco dabeed waxaan u guuray berbera ku barbaaray iskuulka ka galay anigoo ah standard 6 ayaan iskuulkii ka baxay waxaan ku wareegay ciidamada caadi markaan ciidamada ku wareegay adara waxa aan ahaa oo la iga dhigay degmada Kurtuwaare la yiraahdo 76kii xogaya degmo ka bacdi dagaalkii 77kii ayaa ciidamada ku wareegay wakaasanu ka dagaal galay waxaanu galay dagaalkii Itoobiya waxaanu ka galay Goray waa dhaawacmay ka bacdi dhaawacii ka dib hadana dagaalkii baan celiyay mar labaad baan dhaawacmay markii aan dhaawacmay ee aan lay cidlada anigoo halkii Allah ayaa maalinta la heli doono ayaa waxaan aalay 12 caanama halka anigoo Allah ayaa waxa isoo maray nin barida ku guguuranayo ciidamadii oo isla laga tagay ninkii markaanu isku nimi baridu ku hadaafayay wuxuu yiri anigu 6 habeen amba baridaasaan ku hadaafay waxa igu daraa waraabe iimi oo aan oran kari way yur anoo luqadii hadalka aan yaraatay waxaan ku yiri war bal dhagxani soo ururi ninkii dhaawaca dhabtu ku soo guray dhagxan wii keenay agtaydu dhigay waxba ku fari maayo aroodayga wargeebaray isagii abal ciirsi boodi ninkii markii uu iga tagay habeenkii jidku ahaa subaxnimadii baa waxa helay niman orama dabeedna ciidankii Itoobiya hor fadhiya halkii bay haduu sheegi lahaa af Soomaaliga may garanay oo waran lahaa nin tabcaana halka yaal nimankii ninka way qaadeen ciidamadii bay u geeyeen wuxuu waxaan arkay cali baabuur halka yaal oo si loo dhinto iyo si kala dhex jooga gariya nool waxa isagii gaar lagu qaaday Soomaaliya la soo qabatiyay halka waxa la soo diray niman 16 nin habeennimadii dhaafa ciida kan baa la yiri inuu hor jooga ninkii natiijadiisii keena 16kii waa yar loodeen aroortii iyagoo isla dhaafa ciidankii iyagoo aan gudmin ayaa waxay saleen ciidankii Itoobiya halka nin baa laga dilay ninna waa laga dhaawacay Soomaalidii way noqdeen subaxii habeenkii dambe ayaa waxa la soo diray 40 waxa la yiri 20 ah ku hadheen ciidankan hore 20 ha gudbeen oo ha dooneen cali markii ay 20kii soo dhaafeen ciidankii hore intaanay soo gaarin ayay baqeen waxay laba cadow dhexdood bay ku jiraa ninkiina maanta ma banoola waana taliye waraaba halis ku nafla doobu u liiti war laba aabur bay ku jiraa aan noqono waxa ku jira inaanu ilmaadeer ahayn oo aan aad isku jeclayn yaa marka 20 ka la socda oo loo jeeray Farax Budi wuu diiday anigu noqon maayo bi cali yararka mooyaane marka saacada aan joogo shahadu way ga khaldan tahay hadalka ma oran karo kelmad dhagixii kuma tuuri karo waraabiyo dhiig baa ga dhamaaday ninkii waxaan arkay isagoo idhaafaya isagoo cali baabuurtii leh yar buu ii jiray haddaan soo dhabaanayn karayo ama dhagaxa tuuri karayo uu maqli lahaa intuu ii jiray ilaahay isbakaayad anigu wararka isagii ma tusin wuu idhaafay maxaa daba jira ciidankii shalay nimanka laayay ee Soomaalida hor fadhiyay taar bay soo direen ay soo siiyeen qoladii dambe oo ay leeyihiin niman baanu shalay aragnay Soomaaliya ciidana oo na soo dhaafaya iska ilaaliya oo iska qabta gaad koox sodona ayaa la soo diray oo sarkaali wato oo raaci daba ahaa iga dambeeyay nimankii iyaga oo sodonkii halkii maraya ayaa waxay baqanyeedii farxiye iyo laha caliyo ninkii soo doora dabeed way u dhaceen in yar markay u jireen iyo ilaahay qum markay qum leeyihiin waa istaag waa maqlaya anigu hadalka intuu ii jiraba ilaahum baa iska tusin dabeed nin buu ahaa shiishiyahan oo geesiya inay qabtaan bay doonayeen muu yeelin qorigii buu furay ninkii sarkaalka hayay watay halkii ku dilay nin 2000 ugu dhaawacay labada dhulkii markuu dhigay iyo 28 kale waxay ku sameeyeen dalkulmis
halkii bay ku dileen iyadoo aan naftu ka bixin bay waxay fahmeen inuu calidii uu lahaa ay nin meesha yaalla uu ninku doonayo dabeedna iyagoo saf ballaadhana yay soo kala baxeen halkii bay iigu yimaadeen waxaa u daray haddaba markii laygu soo dhici waayey ninkaygaa solyooska ah ee qorigiina laga qaaday ee Soomaalidu ka qaaday oo aan u dhiibay hore waxaan sitaare aani jirin iyagoo ka baqaya in ama bambasito ama baaskoolad way isoo geli waayeen muddo markii ay caynkii ahayd ayaa markii dambe soo dhiiradeen hareeraha iga soo mareen bartii bay igu yimaadeen dabeed waxaan xereeyey qafaskii ciidanka oo aan sitay iyo isteeladii shawraadkii baanan bi'in mid meeshii baadheen isteeladii markay heleen Soomaalida ayay moodeen darajo waxay yahay ninkan cali waati loogu yeedhayay waana dhiig baxay ninku cali samatar iyagoo markaa moodaya oo aan markaa hadalkooda cali samatar uun ka maqlayo ayay go'aan waxay ku gaadheen ninka aqaad halkii baa laga soo qaaday ilaa ninkii masuul dambaysan ahaye iyagoo nimankii sida ayay idul keeneen ninkii faarax aan wali nafti ka bixin iyo labadii nin oo ninkii sarkaalka ahaana dhintay kii kalena weynada gurayo cabaadayo dabeed faarax bay iska yaag dhigeen labadood bay laba naxashay sitaa ku qaadeen ama baleelo niba sidoo yaqaano Itoobiyaanka ahaa markay taliskoodii geeyeen ayay igu soo noqdeen halkii bay yimaadeen faarax halkii intii baqnaayeen ba nafti ka baxday waxa igu daray markay soo noqdeen ninkii meydka ahaa ay sida u xafuujiyeen sidii maral qasaalayo iyagoo markaa naqaskii eegaya inuu dhintay ee kale markii dambe inta laad ku dhiftay mid buu yidhi intaa baata uu dhintay moota halkaasay iga qaadeen waxa lay saaray dhaxashkii indhahana waxay kaga xidheen baadhiis taliskooda markay geeyeen oo adika ay daweeyeen oo ku shubeen xasharaadkii iyo qudhkii yaalay ka dhaqeen yay taardireen cabirkiina iga qaadeen waxay la hadleen heer waxa la cali samatar baanu haynaa waana serious hala soo gaadho bartii diyaarad baa lagu kari helicopter iyagoo markaa iyagu isle waa cali samatar oo magacaasi nolosheeda caawiyey xukunka ilaahay ka sugo diyaaradda way igu qaadeen heer baa la geeyey xafiis bay geeyeen la qeyrtu leedahay dhiig bay ka qaadeen waxay ugu dahayd raggii aanu isleeynay ee dagaalka ku dhacay Itoobiyaanka ahaa dhakhtarkii ay yaaleen baa mid inta laga qaaday oo sariirtiiba laga tuuray yaaniga sariirtii la saaray dabeed dhiig baa lagu rakibay iyo filibooyin waan gubanayaa soo waxaan gubayaa waa dhiig la'aanta iyadoo aan hadalku iga soo baxayn ayaa ninka gaarka waxa loo bedelayaa 2 saac 2 saac baa dib bedelaya showdku wuxuu iga sii ilaalinayaa waba niman kale sakiifno nimanku waana afgaranayni soo inta way maagayana way caayaan markii dambe faraha iga caayeen oo labadii gabcoodna ay iga xidhan yihiin seeloontii ayay ashkatoodaro yaayeen ninkan hana la ka qaado hadaan la ka qaadin bartiisaan ku dilayna waxa la geeyay qol laba furaash oo la isku saaray inta la dhigay markaan ku jiray 6 casho aan dhakhtarkii halkii ku jiray ayaa maalintii dambe subaxii ay yiraahdeen waxa tahay operation baa la geliyay anigoo aamirsan aan suuxsanahay aan wali miirsan yaa magaalada Soomaaliya la soo galay aan ku xidhan heer Soomaaliya soo gashay waxa la keenay nin aanu saaxiib ahayn isku ciidan ahayn oo aanu kaftami jiray oo maxamed bare cali loo dhigay ninka lug baa soo go'day qolka horana lay qolkii dambe ayaa la dhigay isagu ninka dadan buu uu arkayay meesha jiifa laakiin geeri waa buu haystay qolka dambe markii isla la dhigay oo aan albaab lahayn ayaa markaan miirsay baan xawaashigii gaarkayga ay la hadlo waxaan idhi waryaa iikeen waxaan ku kaajo ilaa afkaranya ma ahe isagu halkiisii iska taagan yaa ninkii hadalkaygii gartay aanu saaxiibka jiri ninku markii dhulkii xoroobay oo abahay yimi furinta iyo ciidankii u yimi ayaa lagu qanciyay lafihii faarax ninkii soo dooray way faarax inama kale jiray dabeed lafihiisii aniga leemoodaya la aasay
ninkan anna raggi wax iga aasay buu markaa ka mid ahaa ninkii wuxuu yidhi war waa kuba ninka hadlaya nin aan mooday buu yahay waa kuwa baa nidhi kaad mooday cali buu yidhi waa la odhan jiray baan maxaad ahay ninkii intaan ii jawaabin ayuu ninkii ooyey war maxaa ku helay baan yookaasi miyaa dhiso ma akhira jira cali sootaan asnay maaha waa meel ku hadlaya waa cali nin dhibaatada ugu horeeyo soo maray baan ahaye inuu jaawareysay yahay ma fahmi waxa dhig Muxyidiin waa cali maxaa ifki jiray akhira joogay wuxuu igu yiri oo igu jawaabay de waa dhibaato abahaana waa noo yimid wada waanu ku asna anigu waxaan jiifaa qolka halka waa jannadii halkaana waxa jooga qolka kale waa qolka baraamraha ee la soo maraa bal iska aamuso waxa ku iman doona malaa'ig haddaad afkara weydo ana ka turjumaya iyad likii run buu qaatay ruuxantii dhanna ka dawaqsan yahay waxa markaa u shaqaynayay ruush Itoobiyaanka waxa soo galay niman cadaan oo ruusha markaa Muxyidiin wuxuu moogay waxaan ugu jawaabay waliba ku inanka haddii aad afkara weydo ana ka turjumi likii markaa u yimaadeen ayuu Muxyidiin afkara waay dabeedna cali buu yiri waa la qaado wali ageeyay wax fiican ba weydiin abadu goorbay kugu dhacday miya wax iraaba qaadatay iyo wax dawaa waxa ka la wada khaatire weydiiyay intii markaan ugu turjumay yaa la ku sociyay halkii ana warkayga Allah la qaaday dabeedna waa markaa arsaba la geliya ka soo sheekariyay arsaba markii halkaan la geeyay anagoo ku jira keel ku jira ayaa nimanka Itoobiya noo yimaadeen waxay hadallaan idinka duubaynaa dadkiinu sidoo idin dhageysto ayaan doonaynaa ciidamada Soomaaliya aad anaba waa nool waana la hayaa isdhiiba waxaan idhi anagu nin furin jooga oo xorriyad joogana hadaa aanu raahno isdhiibna deeyeliba maayo anana in xabadna la ku hayo oo hada kale yeedha oo dhalka si deelaya buu qaadanaya maxaan sadeeynaa anaga geeriya nool mid dabadii labadayadii nin dhakhtar baa la geeyay arsaba waa tahay markii halkiina la geeyay dhakhtarkii ayaa laba meelood oo boogaha laga dhayo dhabarada ayaa kala geeyay ninkii askariga ahaa iyo turjubaankii waxay ii keeneen niman dhowrana wada naag dhay baa la yiri show naagta waa cilaaleysantoo dadkoodii baa la laayay yada nabarkayga dhayba intay faashadii ka qaaday iyo faashad cusub saarta la saar ii dhay baan idhi walaaladay baad laysay tiriyo ragayga maxaan ku dheeyaa naagti candhuuf baa ku tufay anigoo xanaaqsan nolol markaa ma rabo dabeedna waa lay soo qaaday naxash baa lagu soo qaaday awalba gaariga lagu saarayay anoo gaarigii actifa saaxiibkayla aan wali imanoo maqayahay ayaa waxa ii yimi nin gaari curyaan wata ninku labada lugood baa go'an dabeedna show ninku waa Soomaali anuu ogaado reer Cabdillaah waryaadii uu yiri aan madaxa qaaday ayaa idhi wuxuu igu horeysay ma Soomaali baata ها ما صومالي سياد برات هاي ورأي صومالي سياد برمية صومالي بنا معيدا باتا وهالكلا لقا قبتا ذو قري دينتا يا دينتا أبها وحا كسبيبي يا دينتا سياد بربا marka waxaan u qaatay inuu yahay nin Itoobiyaano afka Soomaaliga yaqaana ana intii ugu yiri leeg baan waxaan awal xaadiriyay waxaan diintaadiyo migista xareemay waxa ku sameeyay inta markay kala gaadhay caaydi ayuu jeebka gacanta galiyo boorsan gacanta ugu jirtay oo faahitay wuxuu ku soo tuura markay dhaaftay boorsadii ayuu soo gaadhay ciyaankiisa igu soo weeraraya ana aan baridii ku guguuranayo يا لبا يدينا الصومالي ها iska hayay meesha isweerara oo laba dawladood kala ah madaxa intaan isla gelin oo xabashidii qasal u dhibatay oo kuwiina waday wala surwaalkii iyagoo gashan isku kaaceen ayaa markaanu madaxa isla geli lahayn yeedina gaariga dib u jiideen ana dib lay soo qaado waxa ku soo celiyay waarkii baa la dhiga ninkii waa isciikaabiyo Soomaalida ku soo baxday wuxuu war nimanka adaan u warhamin nasiib daro ayaa la qaaday laakiin waxa wanaagsan lahayd adaan u warhataa nimankii yaa ku tusaa dhakhtarkii baana la dhigay
qolkuu joogay qolkii xigay baa nala dhiga waxaa naloo kalay dhig kaloo maxbuus ah oo Itoobiyaan ah saddexdaas irood baan qolka ku naalaa ninkii wadooyaba wuxuu yidhi niman yahow waxaan idinla dagaalamay bal waxadar akhrista Soomaalidu markay soo gashay wuxuu yidhi walaalkay way dishay xoolahaygana way dhacdo dhibaatadaas iyo waraaqdaas ay timi idinama ka tahay ciidamadii Soomaaliya nahay baa xanaaqay iga keenay iga markii dambe way isciilkaamiyay raalliga ahada waxaan inta arkaya way taraya wana idinka turjumaanaya okay ninkii runtii waxyaabo way buu taray oo Soomaalinimo markii dambe waa yahay halka dhakhtarkii anagu ku jira ayaa laga baxay wadankii markii dalkii laga baxay oo ay ka baxday Soomaalidii yaa leeynimaka herar lagu celiyay diyaarad baan la soo saaray arda sabaana la keenay ana ka herar bas baan la soo saaray marka waxaan haysaa haruu sheegay 17 keeni Soomaali kale ma hayno askara markii aanan herar ku soo dhaweyn ayaa wada laamiga ka bayda ayaa nala ku leexiyay waxay lageeyeen guri daara oo sidii iskuul dhisan oo kuraasi leh todobana wax sideedna waxay lahayd safka hore ha fadhiisato sideedna iska kay horjeediyay halkii anagoo labada saf kala ah oo iska horjeedna ayay meel taabteen albaabkii bay xidheen kuraasidii aanu ku fadhinay buushka ahaa ayaa dab yeeshay ku leeyay anagoo le war ku ka ilaahaya waa maxay oo iyagina dabada nooga baxeen ayaa waxay taabteen mooyaane waxaanu aragnay anagoo hawada isku dhaafayna ilaa kursiga kow marka laga bilaabo ilaa 304 way ku dhamaanaysi inta kursi baa soo waliba wareeg ku sameynaya hawadaanu isku dhaafnay markii ay dhamaatay intii kursi ee aanu korantadu waday aanu dhamaynay ay xagga dambe waxaanu raacay aqalkii oo isbalaqay markii aqalkii isbalaqay waxaanu ku daadanay meel yar ciid wanaagsan leh anagoo aad moodo askar istirsoon wanaagsan oo loo dhow jiifta oo ninaan ka dheerayn ayaanu saf gudboon u dhacna nin waliba leenka kale arkayaaye carab ka nin waliba la daadinaya dabad ciid bay naga tumeen waxayna siiyeen laba keenin oo dawaqaad ah iyo habad kooka ah soo meesha adda garoonba ah dhul ah ayaa ku yaala halkana waxa jooga rag badnayno sodoneeya yaa fadhiya beel halkana waxa ka muuqata waa beel ay tog moodo taboolay ku xidhay ku safayin soo taboolay waxa ku qoran laba mari karo dabad beeshii bay fureen oo birbaasi ay isla u kala maroojiyeen dhulkiiba waa kala carar dadku bay nagu gureen halka waxaan ugu tagnay nimankii Soomaalida ahaa ee la qabtay ka baxaydii nimankaas noo sheegay in sidii loogu jiray wadanka ruux soo galay dabadda laga baxay annagana badankayaga lagu soo qabtay adagoo si socod jidka ciidamada waxa sii deelay waliba ruushka oo ma ogolaan ka baxaydii in la qabtay inta yar qarsoodi baan ku kaayay ruushka ka qaranayo bayraad marka 946 ka ragii hore ahaa ee 77 ka ahaa 946 kanin aan ku ahayn la qabtay 77 waa la qalay waxaanu kaga badbaadeen 230 waxaana la isu kala cusii hilibkii walaalkayo halka markii aan joognay oo halka ay noo marayso ayaa meeshiina la ka saaray muddo guriyana la geeyay waxa ragayagii halka joogay annagoo laba saf ay naga dhigeen qolo dambe oo meel goodiya ku hayeen naqol geeyeen anana 17 ka hayeen hore ay qol goodiya geeyeen oo marka ku xisaabtamayaan nimanka hore ee la qabtay waa la tusi karaa unity list oo waayo dagaalkii hore lagu qabtay nimankan si ka baxaydii baa la qabtay oo sharcigu waa sii day karaa ee nimanka kala xasayno ay leeyihiin oo laba meelood ku kala xidhanahay iyo halka dhakeereen meeshu dayr ma lahayn garabtii dambe ayaa waxa anagoo nolol ku nool oo ay 3 casho mar ahaan noo keenaan
laba xabo dhoobi aba furina ay nasiyaan oo aan shaa lahayn cunto kale lahayn oo halka aan iskaga noolahay silic ayaa habeenkii dambe waxaan maqlay rasaas ka dhacaysa magaaladii aan ku xidhay heer magaalada meel koodhar aan ku xidhanahay waxaan la hadlay ninkii meesha haystay waxaan waa maxay badaafiic la dhacaysa wuxuu yiri waa ciidii islaamka waa ramadaan baa dhamaatay marka waa loo dabaldegayaa dawladda u tirsan badaafiicda waxaan ilaahayga yeerisay waxaanu nahay muslim inaanu tukanaanu doonaynaa ee ma nooga shahay maxaan idinka helayaa buu ilaahay baan ku baryaynaa inuu jannadii ku geeyaan janno ma baahniya waxaan ma helayaa buu ilaahay ii weydiinaysaa darajo inaan helo haa baan idhi oo kuma qayaa buu yidhi haa baan masaxaysaa buu yidhi haddii la waayo dhibaatada ku hesha haa baan idhi ilaah baa iga hadlinaya wuu iga saxeexay dabeedna wuxuu yidhi soo baxa toddobaadkayga wuxuu yidhi baydha markuu baayooyinka geeyey meel ah ay ku baydhaan iska tuudaan meedhanay ayuu ciidankii yidhi ha tukadeene idinku ilaaliya ciidankii kale oo dhan ilaalinaya ayaana waxaanu aragnay raggii kale oo ka furay albaabkii oo yara meedhanaya uu noo yimi wuxuu yidhi caliyow nimanka saaxiibadiina lama ogola inay is aragtaan laakiin way idinla tukanayaan wax wada hadalahay ma jirayaan gadaal bay marayaan xagga dambe safka dambe idina xagga horaad maraysaan wada tukada mana wada hadli kartaan way heebaan toddobaadkii nin baan wariyahay inay tujinayo salaada inaga saaraya anagu markaa u diyaara inaan tukano anigu wayga fursad weyday markaan ahayn 17 nin arigii baa waxaan u diyaar garoobay inaan tujiyo anigu wadaadkii tujinayay 16 kalena fadhiyaan safkii hore ayay nimankii soo wareegeen ilmaba eegi kareen markuu gadaal mareen ayay nimankii kalena istaageen salaadii baa markaa sani bilaaba halkii ay salaadu ka bilaabmay lahayd baa markaa nawad u salli marayay yaa go'aan gaadho waxaan wariyahay iswaraysta sidoo soo noqdo mooyaan jaanis kan isku waraysta salaada halka markay maraysay waa nawad u salli ragcatayn ciid al-fajrati mu'akkadati warwaxanu nahay anagu 17 mu'akkadati ma'muman intaasi waxa weeye ururka waa guutada waa urinta intaasina waa guutada waa ururka waa urinta intaasina waa saaq intaasina waa darood intaasina waxa weeye Allahu akbar الله salaadu bari qabsi Allahu akbar bayraad sidii aan ugu tujinayay yaanu 17 keegeenin warbixintoodii aan dhameeyay anoo ku dhameeyay markaa salaada matalaada ah markii aan dhameeyay nimankii go'aan islaamaan ogeyn ismana gaari karee ayaa waxaan u fikiray sidii aan u heli lahayn nimankan kale warkooda dabadna waan helay يلا وحنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وأنه ولا مركز سوس انتهي نك كاهرية وربحين هذا وسوديب الله أكبر تبع سجودي بكل راتين وربنيك كأدنى أي وربحين هالكبسي ما كانوا وربحين كلا قاضنا كلا دم سني اللي سنية فرطونا كلا جران ما نك ما كان تبيان كيه الظهر مريسو أنه وركي كلا دم سني كانوا صادي سلي وحكة بحي أنو كبحنا بركانوا كبحنا بشوحة كتيراني أفسباء أف حبش جاي قانا فضلا طبع تبديك يبو تقول محمد استرقامي إجا ترتبان على واحد تاسلا دوا تكتين وأنا نبلا ندرة كذي هدي أوايو وحيد عارو شقق بلي وحي إلهي غير سوى بالفاتحة إمرأ إن إلهي إجا سوى أسطره ونكر حريي هبين كانوا أسلفيت كذا قول بحيا أيوة مركو تقول له حدري dadku marka waxaan u sheegayaa markuu isku calool yahay islaam yahay walaalayahay dibay yahay in laga aqbalayo wax Ilaahay wadiistaa waan u aragno waanu aragna fiidka anigoo soo kula baxaya buu yimi isagoo furin ama dhaabo jawaana sida iyo six gaara ali markaasuu yiri daaqada fura daaqadu furay Ilaahay iyo sabal wa saaxiibi
درجتنا والهلا الباب كفر بيري راشق وحلا سي جوان كي فركاها يسيجاركي بربارو كقبر القلة كلوجي ونقص النقطة واحد بريت واحد يقرأ يا علي يا تشاد ودي محسوبية وده محسوبي الباب كبر نوفري ننكي عطوا وحكيت وحكيني إنه ولي قبل درجة يقرأ مدير مركي شوقني بيجي وحلا علي لا فلك طريق كبير ويدي إلى هاي الدرجة الضبي هدي لو أو درجة سيدي سورتين ويدنا هرس ما كتيره ور يقعد داباني أدوك مركو ديك إلى علوبي أي صاحبي ور فاتح لي بينو بري دونا إله بينو بري سكوا كيف بالي بوقي ورقد يدون وكاني لعب كيف بالي لح بقرا برا ويلا الجوبة يباني كانوا كجوبينا نفطرنا فربنا ندرينا مربع وكاني وراغدي بان سيق الراسي قري على طول على ست جبان الا يهديك 1000 مره نعذر لها كوسو دكتو كنتير ولا يكنت لي وان لا لابي هاي بان يبكي هذا وراقدا تضبعدا عشنا تضبعدا دغحتو هانا ميدن تضبعدا عشو هانا عدين واحد هلي سابان لي لبا بيلود وهبيله بانو قبطه حبض الحلا أيانو جدارك كقرا كو يلا يصدحوا ترينا يلا وحي كريم معوس ير يو أو إله بيكو كسيحو كبدا عسايا اللي سيقرا أنا درك الله يبغى قرطو تيبان قبا ويقول علي دون متكلم وهنقولي تكلم وحي كحران تاعي شروط بإلهي شروط كل حدا تو أضرب صدمة يا إن هالك أكون كله تشوجنون شوك لما تشرب ربو طبعا كبد وحولي العب يقول بدل ما دعي سبعة اللي يودي إلهي ما أقبل أنا ما يريه إسكود بي لكن وحنا كهرة يا بركة هراء تبرت وحبرشوا يا شروط جو كريستادا وجويي كوكادي وكوكاكي وحنا بري الشهادة دي مركو الشهادتي حيدان كي سوق قري بانو نري وهذا سادرة كده وحارات فوق بسنة ساعة ما ضحى ضباب مجستي وباش بعض قبسنية لكن عندي وشيء كرتي بير إذا شيء ما يله بيجا هذين أيام بانتي كسرت حيد بانتو مسلمي بعد درجة جلسي ناكتبها والسؤال شيء هذا بحضر وقوي واحد يور مدة قاعدين أفر بلاد يا صدق كرد العلا تقال لما تقولوا كبار طالعين درجة حاجات كاش نقول يا هلك تشوجا إلهي وضع الله يا سارقنا محابسته كمده إلهي يبو إله الله واران مسلمي وحانو يقول لي بيستوى في قبسة الدولة ومسلمي هذا وعدنا هالشيء ناكتوا في شو قايل سي ننكي مركي مسلمي بدي سيلو قاعدين بالله ياري وحنا بعض مسلمين دين تكبحي نكون مركا والراس كبيجستي مركا وكورنيل درجة زي تكتب كابتن بوها صدق تيرنا وضلعي وحوي وكورنيل واتهي والله ياري بدأ دينتك بحيوي لي هابي كسر تشالي صدق تيربا شرعي إلا وديو ويما وحي لي ورسا ساعة يقول عضي أتكي سبان يوكو أتكيسو وكو أتكيسي صدق لي تيربا مربا بده وسقبتينو ninkii waxa la darajada waad dhigaysaa waana la xidha waxa loo soo bedelay mid kale ba oo la xidig la anaadkii iyo baayadii buu nala galay ninkaanu halkii isku baranayna neela kala kaxee anoo halkii aanu joogno ayaa ninkii wuxuu xidhnaa wax yar yamal dabal siday sagoo muslim salaada tukada ninkii markuu jeerka ka soo baxo dhaxda marayo ayaa wuxuu yiri meel gaari ka dhaqaaqay ayaan boorsa yar oo lacagta ku arka kayra waxa ku jira $4 kuna show dadka soo degaya meesha bari jiray
malaa ka dhacda ninkii guri buu tegey xaafad Soomaalidu leedahay gurigu ka kiraystay Solomon buu la baxay ninkii wuxuu tiray aad u jeclaaday sidii aan isku arki lahayn meeshana ma iman karo ninkii lagu bedelay buu suuqa ka eegtay ninkii bay saleen wuxuu ninka ii keen arrimaha hawshiina ugu sheekeeyay adoo kugu balabanaya soo wax kula qabto ninkii baa yimi wuxuu yiri Ali waanu saragnay saaxiibka waana ay warramay waana ku geynayaa hadda brito dhakhtar haan baan kugu qaadayaa isxanuuti صبحي بان تاهي او إجريس تصوراتو مريتا تودقاتو وحانا هايدين دعايو لقتي باي حنونيسا حكيم بيت فالي قال لي دكتور هاي ليجي قال لي سيبي يقو قاضي داقلوه أضلعي قول لي سيبي جي وحان تقديك يو نوريا خميس كشان سيتودي كل شيء وتجي بقى سيتودي كاقدكتي حافظ الإسلام كبركا سلام بولا بحاو تقانا ninkii xaafadu tagay laxnaaga dawcalay hilbaahi inay soo iibsatay ayuu macaashay laxdii buu yiri war gowrac xaafad buu yiri kariya jaad buu diray halka adagoo fadhida ayaa inantii beerka noo keentay waa Soomaaliyeed soo waxaaba dhashay inan islaaniya iyo tukrigi ku ogaa meesha waana noqonba markay la tii haybsatay هيبتي إسلامته هي أنا دين نقضي إسلامته وش يكتر إسلامته بقيت بيو وحجرتي وذي أوجي يود بيجرته أدوجو نكى بيجو بلبيجي نكى وحلقة بيجري وفي كمان تقنا وصاحب دوتي نكى وحول درجة إبرو درجة بدي كرهتي مركو حالي oo uu leeyahay wadi xaatidaysa budadii way dhaafta yaani ninka mid labaad hadaa dal doonto labadii dhibaato tii labaad bii wada waxaan war naga tag ilaahay diidi dabeed qoyda soo garooniki waa garaaxada wuxuu garaaxay guri cidla ninkii ilaalinayay baanu saaxiibnay nin wanaagsan buu ahaa dabeed ka tiirad buu ugu xidhay gurigu waa sakatuuro وحلي عليو داسد هالكا تعالى داسكا كادي وحنا ندور يا خمري واحد ما انت لودي ويقلانيان عيدا كيغي انو خمري بان دونانيا سيتو نينكي انتو بقنا يا كتيرادي igu roorta gacanta intii amacmacayay yeetay kala igu roorta dabad gaawata halka taalay oo uu ku lahaa taar ku barayahay yaan taarkii ilka ku qabtay وان يرفيقي سبريكا هوسه كتيره درسكري يودا واجيدو way baxda waa furaatar markii katiirada iga furantay yaan albaabkii inta fadhiistay haraati oo sakaturo koriya dib u isku dilaa laadkii dabara waa isbalqayba marka hadda waa igu baqli baday waxay markii albaabkii jabiyay wadi dhaawaca oo bas socon kartid maskaxdu daraf ma aha oo لوكي كلا جرميسين نمكي اسكو درتاي war maxaad yeeshaa aniga oo sidii ku kaadi daasadii meesha taale ku kaaci jiray yeeshow kaadudba waxay ku socotaa sibirka daasadba kuma hayo waa direerto ay gashay gobashiiba waxa ka ciidankii isriyeeyo khamraysan oo ordaya sida labaabka isku taagay beer cabaari jirta iga horeysa ilaa waxa iga horeysa waa ilaa 200 oo talaabo beerta hadaa galo inta u dhaxaysa hadaan la arag waa badbaadi karaa waan istuuray bismillaahir rahmaanir rahiim tawakkal ala allah wa kafa billahi wakiila baanidi وانا شاهتي دبدور الصورة أنا أسلم الرقية أيوة حنقل بيرتي مركان استاجي ويقنص أنت درك قبته شو بيرتي لو وديعته ما قال لك قرر بركك حلنا قال بحسن لهانا وكو أدتها بيرتي وانا حقاضي وان صعدي ما وحن كتير ساعد لك قياسي ما هاد ما نصيب درته هاي وحن سيتا دريسك سوماليا طوطي هدان طور لها طوطها أو إسقاون لها
oo nin waalan iska dhigi lahaa iyagu Itoobiya ninka waalan way qabtaan waayo iyaga basaas u dirta dadka waalan ninkooda waalan calaamad buu leeyahay shaambada ku taal oo ibn maraada waa nin waalan haddii shaambada la waayo waa la socon mayso dabadna maryahiga iska diistay goorta aan baxay waxay ahayd ilaa kowdii baa ku qiyaasay saacad masidan waxaan meel saxara cidla ah ayaan u baxay sidii nin duulaya oo kale ayaan u socday waxaan galaystay habeenkiiba waxaan galay buurale habeenkii buurti baa ku jiray 12 habeenkii waagu markuu bariyay may ها لما قبل شوي هذا كنا جورنا واجو مركو بريء أيام بوراني قلا هذا كده باك بحي مركو هذا كده واسعنا يا مالنتينا وحن واربونا يا تيراه يدل صعدة لليه هي صور وضح ويدونية إثيوبيا مركا وحيتي صوماليا كما هي نعيدة سيد بالروح ولا يعيدك إثيوبيا وانا يعيدك كتوابو مقص حلا بري marka wuxuu ka halka laga baqayaa inaan gudbo oo hadhow ay ku fashilbato Itoobiya haddii Soomaaliya u nabad tago sida diradeed ba aad lay doonayaa ciidankiina waxa haysta ciidan koofi casa ayaa dusha ka haysta migista wuxuu yiri haddii cali la waayo gobolkaba waa la waayay siyaad barana mishinka ka dambeeyay aad ba lay doonayaa hadal yaan kugu daarin markaan marayay shan habeen iyo shan maalmood يا هبيك اللي حد أنا قرينا يا أيها وحنكو صباحي في نالك قدام عيدك إثيوبيا سو عيدك الصومالي لو صرف ريال هبيك بهالكاس كوار بشان المركز اللي جستي هذا كودي كتير إثيوبيين يندبوا بحي وحنسيل حاجة كوريك بلا عاكلة كوريكي يبيح لك قاعد ذلك أنا جو هالكي صعنا يوصل وريك أيها وحنقل بير بيرته واحد شوقه من عيدة كان كتير صدق الحلف له وعستاب هالبتش الله يلاحظه شاد بقرية عيدك مو صادقتي وأنا بقية وكبقية عيدك صوماليا إنه ما تقف طوبه تريسكي توبيا لوسته يصدق لي 1000 لو حلي تبدلكي مركان اسكو صباحني يوتوش مستوسكي وشدي تبدون حي أنا وان مركو سلا دريسكا أركي كيو صوماليا هي أنا كيسي أركي تبى فرم يقول هذا أبو سيد تبيني حاجات كتير أفقد تجاب موقون ده واحد أحمرية تشيل عليه بتقنا في حوشك وبدم تشيل عليه أطباق قابوي قل لي يا صاحب حاجات كتير واحد يصير دابيا كبدات ولد أنا كإيمي هذا شيئا لها الأفك وانقرن بلها عيدا توبي أنا شرى دي قرن مايو عيدا هدي أن شيئا لها شيب الله يدقانا بلباد يو waxbaa jiro kaana deemahayo meeshan maray hadii wadii xitaa baaran kareen magaciida dabadlikii xagaad ka timi buu yiri magaaladan ka ibaray tuulada xagaad socotaa buu yatiraale xagan horaan u socdaa baan yiri ninkii yaabiyo wuxuu wani karwanani Itoobiya dilay isla uu sitaa Soomaalida ciidanka xana way ku dhow yahay saad yeesha wuxuu dabcay ninkii inuu celiyo wuxuu meeshu oodanta wada male saaxiib soo laabo حق الصلابة وحو إذا كان صور كي وكتر سنة أيود بعد حق يسوي يعليه إلا لي صور كي بان هاي وحني سما صاحب أنا وحني إثيوبيانو وحني إثيوبيانا كزاري بدم ضده وان عبسنا هاي نفاسو الجلات تجمع تجسور رجو وان عبسنا هاي تبي هو نوع نعسة وان كلها في إثيوبيانا إيبنا لكي هذا وحي يقول يا صاحب وده ما تشتري صلابه مركي أنا سكري ويني أيونيك وحي ترجع بل إنه يبتيه ده بيروح سوى هنشبه يحيس وك يدرى يبوح ويلي سما وريا شو أنا قرت سباكو لو جاه قمة دولارنا هذا كلام بقى يعني يكون قاعد جمينا ما طورن هو إذا وصيه صودا ينتلي صلابنا كلنا ده بيعني وريه نباتينا نكاك عبسم مركزان سما أنت شورا نقدر تسمع هذا دقائق وبدر أنا واحد كمان قال هابي هو إذا وصيه يوصل على إنتلا هذا أبان
ما دبيا وطات الصومالي بان سكر الصوماليات بان خلطت يا نجار مضى طيب مضى لي هديها هذا يبغى حبط باي بنسا شيب كان كحنت قشة مستر باي بجرا لكن لا يروح ويقول لي أنا عيدا كنا كايمي أفطوبنا هاي بس كل دست لكن هو شريه وقربضي جيتا قل يا صاحب جيتا تريه يا قرتا شوي خالق هو كوج فيه ما كان كذي كيرو بقي بوحنوه رئيسي إسقاط مرتا ترو أرد سيف تنو كذي مركو دقي بالي تبلس دبوا لابو فريسو هو فريستي سيفتي باقاتي وحان سيدي قورتك جول لبدا قطعوا دسيج سمو لأن نفس كلمة هي سيدي مركان سيفتي دول قبطي وإيش سيدي عليه هي بانو وبهرتني كأنه مثل هي إنه قال هي إسكا كترول ما مالس هي بانو دين تضوا بحيوان لي ملك الإسلام بي ترى ملك الإسلام بانو كل واقع على وضع إسلامك وأشهاتي ويجحرت إنه يدلكو دي دلكيسي لينكي فريسة بانو لي لبدا قرب باكا كلا روجي طورتا يقع سيفتي لبوار هايستا رد بكر لا الصومالي ترو إلى عيدمada Soomaaliya sootiisa baan show ciidamada tooska sana lagu soconayay dhinacaas oo kale iga xiya ninku wuxuu mooday ciidanka inaan garanayo oo dakaymi dadkii ciidanka Soomaaliyeed ila qabta abaar ninkii markuu siday oo uu ilahan galaynayo ayaa waxa iska tusay dayixii maamka ahaa markii hore aan ku soconayay ayaa gees kale ila noqday qaasi ninku waa ku xiriyo Itoobiya ku xiriyo waani وردايحي هرتين لها محا قدال مريي اسكا انا شقي كقراش في الربيل اسكا بير ضيق انا قم الهي بنا بس ضيح عند رولكا الهي دي ويدي بس كحد لو وريرتو بركا كرون باب بخليا بس كحد وش بالبالي فريسو وفريستي مركو فريستي برتي او نسانيو ايام وريرا waxaan arkay ninkii abadu galo leeyahay waxaan hay askari Soomaaliyeed baraha 7 kala ay qabtay oo ninkii madabcaydu soo boodo oo ay qabto ayaa maskaxdii lifti dadda hada kiyari badalo waxaan idhi fadhiiso kornay Soomaaliyeed aha dagaalka la igu qabtay dabeedna waxay soo daayeen niman idin kamida waxay dhahay Soomaaliya hadda tagto waanu ka daawaynaa baaskoolada iyaga soo siiyay واحد وانتظر كوك وانا إنه إلى الصومالي ويقولي وحنا هاي أنا ونين توبيانا ورماء صدقني بانو هكا كنت وقنا وحي كلا قرية توبيان كها ورمضها وحلا قبسي الجرية يدقالك مركا أنا وإنا كره السنة يوان وجهي لكن وحلا دي لي حاس كي عروتي صومالي وحي ربي كوتي تا سيدة أما آخره دتك الله لا يذاق دبجيس لكن وان داريي إلى وكيل إسلام كيس يكتيه بس يدعي سيريبو ستوير ما كوي قدر قوى أفوفي لكن يأثاك سدين قدودو دوا كوري بعدين وحي نبه هالكا يقوى أفطوي فاصولات بو يقوى قبطي تبعدنا إقاد بو يجري بيوحو وحو كسيغي هذا با اللي يسيدو كسير دايبا لوراني هاي انتا الطوري با كسوات بحيبي نكونا ندعوها مديرينين إن بكرة دوي هاي لأنك هلا قبض رول لايد بيت تورين دوك درار بو نقضي وحلا يوحي مدافع ستين بي آجي سبارده أي حقاي كنت هاي سومالي لو سوت وابتي هالكا بدو بس يعكدو أي هبكو دردرو دعي أنا وآج بدي شيء آجي شادي عن إذا ما ذكر بيجناين وكبيري مال كجلب سبان قري مال يرى برحنا كذا طبعا بركي دقالك تكسري بالي ودك بحلعي نيكي ونعيدنا وآج بدنا كرا لبدا كورنر عن مرة لمن تضبط أي وطا أي دبص عضو يا صوم رجيت يبرتي أكتري لمن كبرك أي دافين أي جوا كدم بيا درت في حلية واسبطار شاب الباشي أيو أي ستة أي ولما أنتوا وشقيي أي درت هذا لصيها دبت بركي لمن كده دافين بأي جد العي لمن كي واصل قدين أتوا على وقت وحلي جيي مشودي من ملبي بتاعها كقيل يو بركة شابل قال له يا لي جيي
وحي بالدقن ارتقى سوق بيسو شاري معويس بو يديبي كان لا سوق بو يدي عانا الله آد وابيسي ما الله بابيسي هالكي مركي عن فريستي بان هذا كله وحن لشالقه وحن كويدي سنة كاعو سنة يا إنه اسوري صدونا إن بدل شاد بان عنيني إن مدو إلى عن مرقامو aan lay wareysan hada kale iga xiro waayahay buu yiri anigu marka wixii isku hagaajisanaya aan ku hadli lahaa inuu iga qorayay aan isla isku hagaajiso anigu halkii fadhiyo ku qaylaya ayaa ninkii muslimnimada ku soo daayay oo faanayo oo ciidankiisii saruqaad qaadaya iyigi ani aan basaro shan faalo ninkii libaaxay ka reeyay aniga bii dabeed ninkii muslimnimada ku soo daayay waxaan bafidro caynta inaa telegram ahuna telegram hit bariga hore anigu adoo kale laba hadii kaliimka ku hadli maayo araska tag khalqi baan yiri kan ila hadii dabada haw baxabiyo araska tag buu yiri shaali qabaanay waxa inaga soo wareysan marka dilayskayga aragto waxaad iga soo qaadaa inaan hayno cadawba walba dawlado oo aynu kala dhahay iskuulida sida daraadeed ninka kan waxaan su'aashana ana xidhay waxaan ku su'aaliyaa su'aal ninkan ana soo daayay waxaan ku soo daayay masarkaas ku afduuba nin maxbuus ah waa ahaa soo baxsaday ninkan masarka ku afduubay muslimnimada ku soo daayay ee yiri saddexno muslimiin ku joognaa xerada darajadan ma waxa loo siiyay qabyaalad oo been uu sheegay miisas qolayin حنيا يجلسني ما كبق عذن هل كأتك أمر صادر مك أمريو وحنا وضع له شقي عيال طلابك قادر هبان لكي وحوي يعني من حوق له في قبال وحرة هل كانوا كعباضية ليك هي وحالي جاي صبحي مركي واقو بريء ما نقول ترى فرتنا مقالة لي جاي تبعنا مقالة دي با عريش كايرة فريسو مقالة قالوا تشوا وحبين وحي من الصومالي وضيع لكي وضيع وحي أفكار عطوها الله يسلون بالشيء بعد هاي إذا ka tabaaraysan marka hore warkaaga waa ka dhigaysaa nimanka ay waramay inaad ka noolaato ka sheekaysano waa laga yaabaa haddaad dhibatana raganimaad ku dhibatay ilaahaga aqoonsano magaalada waxa beera ana leh iyo dhaqaale iyo guryo dadka aan dhalay ee meesha degayna 100 qof bay gaaraan dadkii intuu soo galay magaalada waxaan ku tari karayaa ku tarayaa laxbu iibiyay iga gaarsiiyay buu yiri beertu bogolaad buu keenay iyo caano isla markiiba hadal hilibku ii keenay oo soo gaday waska Soomaaliya oo kale taar baa ninkii diray Itoobiyaanka ahaa diyaarad baa tigi Itoobiya oo dhan wada baqaysa wixii madax ahaa ee markaa magaalada deganaa aan ka baxsaday diyaaraddu ay u qaadeen waxayna cali de waxaanu ka codsanaynaa raganimada sameysay in yar baan ku harsan lagu qabay haddaba waxaanu ka codsanaynaa de wixii dambiga lahaa mooyaane inaad cid kale sheegin inkii wuxuu siiyay 600 oo bir konton bir waxaan siistay furin iyo xalwad baan ii soo sii dabeedna anoo saad ka dhigaya iksibira hilib kala qaar ii soo shiil baan yiri bacbaa ku siitaa diyaaradda waxyigii baa la raacay meesha dilka leeyay migiste markii la soo qabay baa yiri anigu migiste niman ahay la hadlay magaalada waa wada dabdiile migiste wixii ana ciidan soo diraya wax ka qora in la hadli karaa ma jiro nimankii waxaan wajalay 13 laba alflu hooseeyo dabeed ilaahay yagii la waa dafirayaan kiiska waxa dhacday nin baasha adiis la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay la soo saaray markii aniga la wareystay la cali wuxuu yiri lacagta iyaga ay siiyay saadka iyo waxaan raashin kale iyaga ay siiyay waa ka dababanayna bay yiraahdeen arinta maxay ka jirta buu yiraahdaa ambiiqo anigu afarba mooyaan af aqaan ma tiro cali afarba gaba yaqaan sidaa baan isku wareysan karaa waana loo yeeray ninkii waxaan yiri noo kala turjuba annaga safkaradoonay badaadina laba nin bay nahay oo ciidana oo laba dawladood kala ah dawladda Itoobiya in dawladda asset siyaasad ida ku sameeyaan dabacnay raga mishirka ama waa ka dhicisoba ama waa fulaa
calool adeeg amba wax loo adeegaya sidaas Afrikaanimo kula talinaya waxa kale oo aan sheegayaa baashaadii xabashigu yaqaana kaasaan isku afkarana inuu yaqaana maxaabiist baa iga maraga iyo ciidankiisii wala dhirbaaxo loo hanjabay dabeedna waraqaan buu yiri ilaahay wuxuu ka irsiiyay meedaan inta soo 13 nin aynaan ahayn meena koob iyo 10 labaan ka reebayo koob iyo 10 aynaan isku ogeyn in Soomaaliya adiga daba timaadaan meedaan lacagta isiin lacagta iyo raashinka ma ku siina ishi kii kastabana saa ku marxaad furay migisto wuxuu yiri hal dilo nimanka hala laayo calina yaan far la taabsiin hal lagu sawiro joornaal hala soo saaro dalka ah foolxumada loo dilay nimanka inay tahay ninka Soomaaliga cadowga aynu haynay oo ay sii daayeen laba tiir baa la qoday nimankii waa lagu xidhay anigana wali hor fadhiisiyay soo kabarad baad xagga dambe iga taal waana la sawiraa nimankii la laayay anigoo ku sawiran ayaa joornaalkii ku soo baxnay Unitenishka ICRC jimciyada leeyahay waxay doonaysay inay aragto mar quraan xidhan oo Soomaalida ah oo dagaal lagu qabtay aad bay doonaysaa markii subaxii joornaalkii ku soo baxay magaaladii ayaa 3 nin heleen ayay ka tageen Ethiopia Kenya galeen Unitenishka bagaliyo weydiisteen si aan waddanka kaga soo goosanayna wacaynkaas baa leeyahay يلو أن كنت أبعنا هاي شرالكي أيو لسوق هذا ينتريشكي وحوي بعدين مجلس حيل مريم وأكيرين وحيلين على بابور بالو بهايه وبرسل وفرها محمود تقال لقبته وقتها كتواب وحيلي يسوق علي هدوب دبار هلا عديو هدو عدانا هلا مدبي ميل لو قلت سكرارا هلا جي يرسق أبو يري قارب الله يقاضى ليه مشي dabeedna xamaan bay geeyeen meelaha rayiisa tibi bay ga gaabiyeen waxay ii xidhay marba kalar baab ay buufiyaro aan soo baxaa ninkaygii aad mooysay 8 jirka markii la qabtay 8 jir baa yaa da'yar laga dhigay suur bay soo qaadeen oo ii xidheen waxay geeyeen raas hotel وتضبط دبق تيش بوليه والله يساري فوق يسران تجي سريت وأمريكان على وضي وانت بالي محد دونيسا شو وحي هنا بدأ طويل هذا على صيو مجد وحان اللي ورياه دل باتهي لك بك على توجنا يرى شرق وها إلا سيسا كوتيو حب أن تصل الله سبحانه حبيسيو ده عاول توجنا يا ده هذا دار رحمة الله وعلى كتاب قرآن أنا إيه كنا كادي سيجار إيو ودارك دوحي الله وسكت البلايا وما أنت أنا يجو وناك سريد راحوا يقولوا بقدم بدني كعسكري جاء إلى شو جا حموجا تقولوا إلى خمسة إيد بقصة بحناية ومحمد الباباني دي أنا مسلم بار هاي دقيقة خبر ضرب ماي أنا هكي استريح كوا هاي أو أي سي أمبير يبيت يكريم فيتامينا أي جبل وحصالة وبقول البرد هو يقول افتقرب هو بقى جبل يجيبه وحنقضي نبورن إنك يجي فيش كها يجي تريسك سوق علي ما أنت طبعا يبدو ولا صار عيدك يوحي وداك توي مركا كيلو سو ريجي يعني سوركي يوحي كان سكبحيا وحق قشداي تريسكي توتاها dabeedna anigoo fadhiya dhulka iyo maadeen Ali hawaariyo bayrahay wala hadwaay markii aan la hadwaay bay u tageen Itoobiya waxay dhinku maanu hadlin way waa hadlaa bali oo maxaa dhacay ula hadwaay yu dhagalay maya dabeedna intaan kacay yaa suuligii furay suuligu wuxuu leeyahay waa kan lagu fadhiistay يلا راعيو وشمع الكاشف عن سكفريست الباب كلا وافري نبان كيابه وهذيك السوري قال الباب كلا محيرين ميد بقف أنتوا براكوا صاحدي بيجي فشي ها هو أريو علي أنا فاهم ولي أرفان ياس وحولك وحبكم يسدي ماشي ولا تشذل أن وتبرك أو حياة
inaan meesha xun ku noolaan jirayna aan ku miirsanayo meesha wanaagsanna aanan ku keenayn saaxiga taas baa tusaalaha iyagu ahaa nimankii waa is waraysanay waxay yidhaahdeen caliyo waxaana unitenish biladii wataa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa maanta nasiibkaagaa wanaagsan waxaad yeelaysaa ha cabsani migista waa dafiray maxaabiis kaluu hayo maxaad aragta war maxaabiis waa la hayaa baan iyo maxaabiista marka hore intaasaanu hayno dee waxbaa ka noolaa ma garanaysaa bay yidhaaheen meel ay ku xidhayeen markaa magaalada imika dhinac aan ka joogo garan maayaan migista ila hadleen wuxuu ninku nimanka u sheegayaa waa niman Soomaali Itoobiya waxay dhahan Soomaali Itoobiya weeyay yahay nimanku ma ahabaan inuu walba darajadiisa iyo lambarkiisa iyo ciidankiisa ayaa garanaya habba qabay yidhaaheen bal nimankii qiyaas meeshii aynu ka leeyahay haddii la geeyo baan dir dhabe waa soo qiyaas karaa meesha dir dhabe geeyeen waardiyeena lama socdo hudheel baan ka soo qadaynay waa soo dultaagay nimankii koob iyo 30 baan ugu tagnay meeshii uniterisku gacanta ilaa bishii 83 bishii labaad gacantayga nagu hayay cuntada dharka iyaga waxa iyagoo dhan iyaga maamulayay ilaa kala bedelka dhacay dabeed waxa lala wareegay unitariskii halkaasaa dabeedna aanu ku badbaadnay migiste waxa iska dhaafay markaa unitariska uu soo dirayo ayaa wuxuu igu yiri cali maanta xisbiga Soomaali SM Somali National Movement iyo SM waxay joogtaa waa garabka bidixda Itoobiya haddaad been mooday waxa hogaaminaya ragga caynkaasa maanta adigana nasiib wanaagaaga waxa kula wareegaysaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa haddaba adigoo eegaya xisbiga inaga dhaxeeya Afrikaanimada waxaan ka codsanayaa arrinta yar ee lidinku sameeyay jidilka ah inaad u sheegin unitariska intaasaan ka codsanayaa waa yahay baan soo dhaariyay buu nin buu keenay af Soomaaliga aan aad u garanayn dabadna wuxuu yiri waxa migiste yiri sida uu yiri migiste sidaas soo hadlaya inaan ku dhaarino run mooye inaan ka sheegin been dawladda ayaanu ka doonaynaa oo aan sheegin arrinta gaarka lidinku sameeyay diyaar ma tahay ha kitaabkii buu kala balaqay baaru soo saaray oo ri inaad sheegin arrinta ma wallahi ba markaan arkay inaan ninku Soomaaliga aad u garanay baan u hoos kaliya waxaan no wallahi baan halku ma wallahi igu yiraan wallahi oran lahaa baan no wallahi ma billahi baabi may billahi baan idhi taasu yar qoonsaday markaasuu yiri wallahi ma billahi baan tallahi baan markaasuu yiri taasaan muujaan waa tallahi yiri bale beedo naga bad aan jabalo beedo naga bad labada kale aanoo sida ugu hoos galiyay ayaa taas saddexaad oo aan muuji waayo haddaan xitaa toos u dhaarto danicadu hayaabaan hayo ilaahay baa u arkaya waa yahay migista sidii baa taana aanu ninkaana isku wareysano haddaba waxa dhacday intii la baxsaday ee leeyahay kiisku soconayay ayaa leen waxaan ahay nin isasiiyay inaan Soomaaliya tagay ayaan riyooday habeenkii waxaan ku riyaabay inaan wadankii joogo anigoo magaalada Burca tagay anigoo dabeedlay reerkii magaalada ina fadoobe uu yaala anigoo ka tagay oo gaari ka raacay magaaladii baan tagay reerkii baa la tilmaamay anigoo sida baraamkii kiis sokori ku sita madaxa ku sida shadada la daadinaya ayaa waxaan ku soo baxay islaamta soohay iyo inankaygi oo yar marka yaraado naaska jaqay marka ma jaqay laga daayay adigu yaa u soconayay marka aanu isa salaanay bay waxay islaamta igu tiri aakhirad ka timi kama imane bal waran hooyabaan waa nabad bay tiri labada aqal waa weey reerkii gabadhiina waa la guursaday ragiina wuxuu ku doobaray magaaladii
waxaan alaabtaale gabadha u geeyey ana magaaladan ka balgaarayaa jeesadkii aan jeestay baan gabadhii arkay oo guriga hor taagan tib iyo mooye isku haysaa sidaas ay eegtay ana waan eegaya ruuxantii waanaanu isjeclay markii aanu sidaa isku eegnay manaamkii iyo isla booday ee la wariyo waxaan ogaaday inaan riyoonayo riyadii waxay igu soo noqotay 3 jeer geedna waan fadhiistay qolkii madawaaya ku jiray waxaan ilaahu caawiyaa ka dhiga qarandi oo dhulka qoda oo hadhow markaad tagto gurigaageena cali ka dhiga baa niyada kay qarandidii aan ku maamka ku arkay waxaan u dhiibay hees fariina waxaanan idhi qarandida balquustay adiga qodaal badan afka qalabku haysto quusaya ciidee dhulku kala qaboone meel khafiifa dayo ka qabsiiyo waxaasii qaflaysaba qumatiga u soco hawle xanqarare qorolowoodu sii hoyo waa magaaladaydii qormadaan lahaan jiray qoyaruunka soo fuur markaasaan sii bahasha haddaysaan gabadha ugu tagto manaam way sakadii doontaa waa la dadaarman yay qoofin gabadhuye qumatii isku taago qofsidiisa hadalo qoyar wuxuu u sheego qasnad weeye hadalkuye yuu ka qoqobanine qadita waxaad tidhaahdaa anuu qarandi baanahay qabuurahaanu hooydaa dadka kala qarsoon baan fariimihiisa qaadaa geesigii ku qabi jiray baa qowl isoo faray qarad kaluu ku nool yahay qabar waxaad balhaysana qoyariigu sii dhiib fariintaasaan markaa manaamkaa ku faray qarandida waa tahay adigu waxaa nabadii baa dhacday waxaana la geeyey xamar markii xamarna la geeyey ayaa hooyada ii timi gabadhii oo markaa walaalkay dumaalay ayaa waxay ii soo dirtay cajladii ay ii soo dirtay waxaa ku duuban hees ay markaa yana ii soo duubtay ismaanu arag markaasi ogow anna xamar baan joogaa iyana waxay joogtaa Soomaaliland dabeed wadada lama soo mari karo oo ma soo mari karo ma soo bixi karo hees bay igu soo duubtay waxay tiri hadka maalintii iyo inayow habeenimo hurda kamaladino haasaaweheniyo wadadarankii haasaaweheniyo hadalkaadii tidhi baan weli hibaanayaayo hadkaa lalaayiyo hawadaan waraysto wuxuu haatifigu yidhi halbowlaha wadnaa iyo halistay wareento hoygii aakhiru tegey hawl yaraan ma seexdo halkaadiiga tiilba hilbayga go'eeno dadba hadalkii waan dhigay jawaabtii waa la dhow celiyey dabadeeda cajladii sidii baa gabadhii ugu dhiibay oo ay ugu timi warkii anagaana weli sidaa isku arag ayaa waxaa aan joognay xamar xalalaana la geeyey siyaad barre wuxuu yidhi nin waliba waxa uu la darajadiisii ninka ciidankiisa uu ka tirsanaa uu u sarreeyo darajo leeyahay buu hala dul bariyo dhulla hala siiyo meel bay na geeyeen kharaabadaho ay guween bay dhul naga siiyeen halkaa annagoo marayna ayuu siyaad barre wadi ku soo noqonayaa buu yidhi aanu nagu soo noqon ragga iyagii waqooyi ku dhashay waxaanu u nimi dadkii waa la laayay iyo dalkii waa la gooyey mooyaane waxaanu garannaba inaanu xamar ku arki weynin waa raggaygii waqooyi ku dhashay halkaa annaga oo ay arrintii noo marayso ayaa waxaanu taarigaraynay niman mareexaanana loo diray dibadda iyo caafimaadba annagiina aan cidina eegin ayaanu nidhi waraan mudaharaad samayno si caalamku inoo ogaado nimankii ina keenay meesha inooga qaadeen mudaharaad baanu samaynay xamarba waa la ogaa BBC baa ka sii daayay caalamku waa dhageysay waa ogyihiin wanaga mudaharaadka ka soo bilowday markii aanu maraynay halka asweel la yiraahdo ninka la asweel ayaa ku sawiran yahay ayaa waxaan ugu soo baxay ciidan dhibo ah dabeedna laba qori baa raggii ila socday ka furteen
markiiba inta ka laadeen ka qaadeen afweyne afoniya ka hadlay wuxuu yidhi nimanka lama dhaawici karo lamana dili karo masaalixuna lagu tuujo halkaas waxaa noo yimi naag wariye ah wadasta problem waa maxay dhibaatada tagani problem too much I'm prisoner of war 1977 captured Ethiopia it's not country my wife my children my baby waxaan nahay maxaabiistii la qatay dadkii 77kii caruurtoodii iyo naagahoodiina aan arag una dhashay gobolada waqooyi ayaanu markiiba naagta wariyaha waa sii daysay waa gaas maas baa nala ku tuuray waana la qabta subti baa nala ka fuqaayay caana iyo dhalsiya maraq markii subtiina ka kala ciidamada waxa istay gabi ayaa wuxuu ugu yiri istaag diinta aabaha waxa ku sameeyay sagoo og inaan markaa ninkii warbixinta dhiibay aan ahay waxa tii xabashi soo bartay af Soomaaliga nin Soomaaliyo dalka la dagaalama la arag laakiin sirta dawladda nin dabada geeyay adiga buu lama arag xabashada ku soo qaldaatay buu yiri imika saxabad baa ku qoran ku gulfanayna gabiyo waxaan yiri kalbada iga dhigayso xabashi baa tay waxaan ka idhi marka anigu Soomaaliga ahaana dalka baa tagay subaxii baadahay ila reekaliyo ahay ما دام ما أنت هاي إن إثيوبيا هاي إن إثيوبيا يقول شكتنا ونصيب وحنا هاي نين بليت صور تابر كهرة ورش إسحاق وعن كوجو دري كوبي تبصر إنه واحد لا صومالي نمو أو لو قبت الدجال نكوه ريبان أنت صوني إنه أنا لحدنا أنت صار كصبحنا يعني كسر إلى هاي وقت يديريو isaga og cirka hadaleysan lagu soo ridin calaho yada ku yaal yaa ku raacsan buu yiri shanba gacmaha taagay kala isaaqa lixdeedii nin baan la qaaday jildil iyo hadii la ka dhigo biyaha badda oo meel ku soo neefo birkad ay nagu nageliyeen ya jildil bay nagu sameeyeen inama reer Soomaaliyeena oo qabtu ugu dhacday xagga yaa balqayna markii wala kala soocay lixnino isaaqa la tagay waxay ku dhool yihiin war laga ma hayo sabaxii bay mudaharaadina soo sameeyaan boor soo qaatay afweyne wuxuu siili 30 kilomitir baa ku gubanaya nimankii ka hortagay wuxuu yiri jooga waxa la yiri maxay ku dhacday nimanka caynkaas ah in gaar loo baxo hadii la keenay safaradaanu galeynaa ii kale bado afweyne waa loo geeyay afweyne wuxuu yiri maxaa wacay inta xabashada wadiima jaclaa ودي سودة وياي دل كيبان اللي سيستي صدق كوني يشاب قولي استيد لوان يكون بدي شيء أنت أوح ذي قبل هاي يكون سوى سعودي محاو عينات مدهرات مثلا وأنا اللي يا برو صدق حاله لو بدي لو شواب مركو هراء لحلا يدا إساق بان مدهرات كأنه كودا سعودي أنت يلي محابيس تاهي وحا أنا جار نروكو دلي أنا نروكو قفصلي مركه هراء نوجا شباب طلبات يريد ريسكو أنتو ناقوصلي تبعيد غربا كده حيسا وربحين تويدي كريسي رجع كده شباب توي من السي أنا قبانا نما من رجع يجري وقوي كلا باربانو تشيل كي بكو كلا هينا يلا نوجا شباب بدي حاجة هذا أنا قدر عروض تيجي غيرها يجي نقول بديار ده بركسو دقيقة بكذا كف حامي دوري ما هاي إنه يعني لو جت شو ما يجي كده أكبر نقول يعني هاي كأفراد أنا وعد أنا قررنا بوين وما ده خب وده كانوا كده تقنين ده أقوم أنا من وحنا قررنا ما هاي نه وشهر كي أنا حوك يسكت رجني يلا أنا راسي أدوق وحولي dadkii qof walba halkii uu jeclaabaan habka ugu bedelay warbaahinta idinka sii deynayna in aanu timaadeen wadakaana yar kala go'an siyaasar hal ku ahaan sameey haddaba marka xamar ka soo baxnay waxaan imi reerkii waxaan ku soo horeeyay gurigii aabahay oo bah yar iyo geel joogan oo aan ugu ajil marka bahda yar guurkeeda iyo reerka dambe dabeed waxaan u sheegay markaan u suuraysanay reerku wuxuu yaalay xagga laabiga meel xigta hooyada iyo gabadhii iyo dhaxlada walaakay dibaalay inaan aan abti wahay baan diray reerkii kale igu soo salaam baan yiri inta laabahay la joogay buu igu soo salaamay iyo bahda yar dabeed wuxuu yiri reerkii waa
nabad qabay waana u sheegay waana imanayaa buu yidhi idinku soo yaacina waxa dhacday markii aan tagnay oo aanu gaari kaga degnay magaalada ciidanka u dambeeyay SM joogeen laamiga waa ka talaabsanaayeen ayaa nin adeerkaya habeenkii ku soo baxnay neef buu noo qalay markii ninkii aan adeerkaya habeenkii la sooriyey neef noo qalay ayaanu laamigii ka talownay ayaanu guriga ku soo baxnay dabada loo soo baxay inta hadalkayga la maqlay dadkii markii aanu isa salaanay oo la taagan yahay iyo hooyaday waxay tidhi inan markaa aan dhalay oo naaska shaqaysay bal caruurta ka garo inantaadii way hooyaday ugu tihi dabeed waxay dhihi haddaanay taa ahayn garan maayo dabeed wallaahi jir baa urawa kaa gartay bay tidhi markii intaa ay tidhi ba inantii intay qaylisay oo sastay iyay tahi aabbe markaas saru qaaday bay tihi 13 sanana waxaan ahaa baan ogoon ahaa ilaah waa kugu mahad haddaad aabbahay keentay laymana yidhaahdo haweeye ayaan baa la yidhahdaa bay tihi aabbadii ay lahayd inantii saru hayay yaa hooyada duusha naftii waa ka boodi badhul markaa maan dhigin habaashaan u dareera way ugu dareer habeenkii waxaan kala cunayo aan halkii la fadhiyo inantii lahayd ayaan baa la yidhaahdaa yaa tii aabbow 13 sano waxaan ahaa aabba la'aan markaan aabbe helayna waan hooyo waay oo adduunka waa markaan 3 jeer baan naxayo waa markii ay u darayd bay ka mid ahayd kelmaddaasi inantii waxaan ku idhi ina yahay wakhtiga baas anigu ugu yoqo waayahani haystee wixii waaxe sheegiyo waxyaalaha adduunkuba waa wax soo jiraya waxanay aabbe adna waaye arag noqo iga daa laba calolowga soo bixii ku 3 ahaa yaa waxa timi gabadhii saru iiga weyneedaan walaal ahayn ee inankeedu ila socday wadayba xal waa soo socotaa markii la yidhi yaan siitana way ka boodi ilaa nin geeri ahaa baan ahay dabeed waa ka hortagay alla waa walaashii xalwa geni walaale sidaan u lahaa ayayana duusha may dhiban laakiin geri bay gaadhay alaankan dareef maaha markiioo ka daatay markiiba iyo indhihiioo iyo sibay noqotay markaasaa reerkii ka dhaqaajay dabeedna waxaan qabtay reerkii kale ee aanan isaqoonay odaygii baan ku yidhi reerkii waxna isagoo dhintay waxna halis yahay baan ka imi bal anigu reerkan dambe la joogayahay inta dunidu si noqonayso adigu reerka iyo xaggaa qabo sidii buu ku soo qabtay odaygii dabeedna reerkii taasina waa dhacdadii dambe ee markii aan imi ila kulantay waa yahay waxaa dhacday haddaba waxay arrintii halkaa iska barto markii dalka la soo galay ayaa waxaanu kulannay madaxweynaha abdalla ka dhigo ilaaha u naxariistee maxamed ibraahim cigaal waxaan ugu tegey madaxtooyada waxaan madaxweyne waan ku imi waynagan isku nimi anigu waxbaba kaa dooni maayo kale kursigan aad ku fadhido baan xaq u leeyahay haddii aanu yeesho ma iga garbarinaysa waaba kugu haystaaye uu qoslo wuxuu nin intay weydiiyey arkayo dhuuri laakiin nin madaxnimada igu haystaa ma arag waxaan idhi 6 xaalo oo ii soo maray soomaalinimo haddaanay kuu soo marin anaa xaq u leh waxaa igu kulmay cadow ku qabay hulbaqdi lagaala hadh kobkiiyo bawdada ka jab indha garag gacalwaa magacaagiyo muugtaadaba lawaa nolosha lagugu dhaxal 6daasa ila kulmay hadday 6daas kula kulmay kursiga anaa xaq u leh haddaad Soomaali soo ka qarqaadanayso uu qoslay wuxuu yidhi bal anna ii qabo soo bilaaya baan isku doontay isagaaba dhibi soo bartay oo iga daraa maxamed ibraahim baa ilaahu naxariistay cadow ku qabay aabadii watii la qabtay yaa fooyay qabtay magacaagiyo muugtaada wala way soo bartay wii oo meel ku noolahay baa la waayay tii saddexan nolosha lagu dhaxal naagtiidba waa la guursaday waa adawid wanaada dhaxlada waa saddex xibaalada waa oga halka markuu barayaadhay kugu haysto war wallahi inaanu ku haysano bilaa ku haysan bigiirsi dabeed lacag biisiyay wixii darabay dibadda oo yiri boorto dhakhtar imika waxaan salaamayaa dhammaan marka hore Soomaalida oo dhammaan waa salaamaya xaaskayga caruurtayda madaxdayda madaxweynaha iyo dawladda oo dhan waxaan leeyahay unitariska gaar ahaan ICRC oo joogta Jirifa waxaan ogaa
Mr. Boris Nicola yiraahdo wakiil naga ahaa waxaan markaa leeyahay si wanaagsan in la caawiyo dalka iyo dibadaba wixii jooga dhibaatada wadanka u soo martay baanahay taasana aad iyo aad aan u codsanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نعسو قميتيغن نبرد قرصونيو نعانيغا